wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaale dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow maxamed iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reedan dhisowka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cali xasan oo maalmogon ka sugan dalka Nigeria gaar ahaan dowlad goboleedka Kaduna State ayaa ku qayb galay shirka maalgashiga Kaduna oo la hangaabi Card Investor shirkun oo soo wada jiray iyo fureen madaxweyne ku-xigeenka Nigeria iyo madaxweynaha Kaduna State Malam Nasir Al-Rufai ma iyo ku qayb galeen wufuud caalami oo ku shal socday dhowr wadan iyo waliba shirkada maalgashi maalmo shirkun uu socday meelaha ka bandhigay fursado maalgashi ee ku jira guutaan dalka Nigeria gaar ahaan dowlad goboleedka Kaduna madaxweyne ku-xigeenka dalka Nigeria iyo madaxweynaha maamulka Kaduna oo furitaanka shirku ku hadalay may soo wada jiray iyo handhawaayana muhiimadda shirkun lunku hadalahay maalgashiga Malam Nasir Al-Rufai madaxweynaha maamulka Kaduna iyo xusi anti farxad weyn iyo ngeta anti shirkun iyo ku qayb galan wufuud ku socday dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo dhawaan helis mintaaneen lamada maamul iyo soo wada jiray oo saxiixdeen madaxweyne Abdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Kaduna Malam Nasir Al-Rufai Axmed Madoobe Nuunow Maxamed wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaale dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa xusay shirkun intiyo ku faa'iideen khibrado ka saabsan arrimo maalgashiga gaar ahaan caasimada Kaduna oo ku yaalo stateska Kaduna waxaan u nimid shir oo 2 maalin ka socday oo maan soo gabagaboway shirkaas oo ay nagu casuumtay dowladda Nigeria gaar ahaan stateska Kaduna oo looga hadlayay arrimaha oo la xiriiro maalgashiga madasha maalgashiga ee Kaduna loo bixiyay waxaan ka soo qayb galay shirkado waaweyn oo caalami ah bangiyo haddii ahaan lahayn shirkado maalgashada beeraha iyo dhismaha wadooyinka iyo dhaqaalaha guud iyo aan ka soo qayb galay dowlado kala caalami ah shirkaas oo nagu casuumtay dowladda Kaduna aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waana bilowgii xiriirkii oo markii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yimid 3 bil ka hor bilowday oo ahaa in la mataaneeyo stateka koonfur galbeed Kaduna haddana marihii iyo waxa waaye bilowgii xiriirka u dhaxay labada dowlad goboleed wax badan waa ka faa'iideysanay xiriir badan waa ka sameynay marka waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dowladda Kaduna oo nagu casuumtay madaxdeedii oo aan la kulannay ugu weyn yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Kaduna iyo madaxdii kale aan la kulannay wuxuu ahaa shir miro dhal ah waxaan rajaynaynaa in hadduu alle idin wax badan aan ka faa'iideysanay aan dib u celin doono xiriirkii bilowga ahaana hadduu alle idin sii socon doono waxaan u gudbinay madaxda dowladda Kaduna salaan uu nooga aan ka sinay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aad ugu mahadcelinaya casuumaadeenoo fidiyaan iyo sidii wanaagsan ay noo soo dhaweeyaan shirkun oo hayko dhowr maalmood socday isla markaasna lanku aransaday maalgashiga dalka Nigeria iyo gabagabadii ay casuumaad oo casho sharaf ee lansuubiyay wufuudi ku qayb galay shirka casuumaadda wasiiradan ku socday dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo may daba socotay booqasho dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafduusa hogaamiyay iyo ka seedan Kaduna State kaas oo la kamintaanay lamada maamul Kaduna iyo koonfur galbeed wana la ka saxiixday helis iskaashi oo dhiniyo badan leh Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed